Filimka wuxuu ku bilaabanayaa dad badan oo isugu yimid riwaayad weyn, iyagoo ku dhawaaqaya magaca kooxda caanka ah ee Huntress. Kadib waxaa la inoo gudbiyaa waqti hore, halkaas oo la ogaaday in jinniyo ay dunida mar walba ku duuli jireen si ay u xadaan nafta aadanaha una cuniyaan boqorkooda jinka ah ee lagu magacaabo Guuma. Halyeeyo leh codad awood leh ayaa u istaagay in ay difaacaan aadanaha. Codkooda ayaa jinka dib u celin kara. Heesahooda waxay noqdeen derbi difaac ah oo xoog badan oo jinka ka hor istaaga inay ku soo galaan dunida. Qarniga ka dambeeya waxaa la doortaa 3 gabdhood oo ah jiilka cusub ee ugaadhsata jinka. Haweeney la yiraahdo Saliin ayaa ah sheekeyaha. Iyadu waxay dhistay koox cusub oo Huntress ah oo ka kooban 3 gabdhood. Gabdhaha waxay isticmaalaan fanka iyo heesaha si ay u ilaaliyaan derbigii difaaca. Kooxda heesaha ee Huntress ayaa ah kuwa ugu caansan dalka Kuuriya, qof kasta wuu jecel yahay. Mid ka mid ah gabdhaha waxaa la yiraahdaa Miira, waa quruxda kooxda iyo qoobka ciyaarka ugu fiican. Midda labaad waa Soy, waa gabadha rabka iyo qoraalka heesaha, waxay ku barbaartay Maraykanka. Midda saddexaad waa Rumi, waa heesaa madax ah, codkeedu uu dadka ilmaysiin karaa. Hooyadeed waxay dhimatay xilli ay yar tahay. Saliin ayaa korisay kuna dhistay kooxda Huntress. Inta ay dadweynuhu sugayaan riwaayadooda, maamulahooda oo la yiraahdo Baabi wuxuu arkay in diyaaraddu meesha ka leexatay. Diyaaradda Huntress ayay saarnaayeen, waxayna cunayeen cunto badan si ay u yeeshaan tamar. Waxay ogaadeen in duuliyihii iyo kalkaalisada diyaaradda ay si shaki leh u dhaqmayaan. Baabi ayaa la soo xiriiray isagoo weydiinaya sababta aysan u iman riwaayadda. Markay daaqadda eegaan, waxay arkaan in diyaaraddu meel khaldan u socoto. Waxay ogaadeen in duuliyaha iyo kalkaalisadu yihiin jinniyo markay arkeen calaamadaha jinka ee gacmahooda. Jinka ayaa isku beddelay muuqaal kacsan si ay u weeraraan, balse Huntress ma aysan cabsanin. Gabdhaha waxay soo saareen hubkoodii jinka la dagaalama, waxayna bilaabeen inay heesaan si ay jinka u dilaan. Diyaaraddii ayaa burburtay, balse waxay ka boodeen diyaaradda iyagoo adeegsanaya awooddooda. Waxay si heer sare ah ugu soo degaan goobta riwaayadda, taasoo dadkii ka yaabsatay. Waxaa la inoo gudbiyaa boqortooyada jinka, halkaas oo jinnadii la dilay ay warbixin siisay boqorka jinka ee Guuma. Guuma wuu carooday, wuxuuna dilay jinkii warbixinta keenay, wuxuuna aflagaadeeyey jinka kale. Haddii aan la joojin Huntress, heesahooda waxay ka dhigi doonaan derbiga difaaca mid dahab ah, taasoo jinka si joogto ah u xiran doonta. Jin gaar ah oo awood leh oo la yiraahdo Jinu ayaa soo muuqday, wuxuuna bilaabay inuu hees u sameeyo Guuma. Wuxuu sheegay in boqorka jinka uu mar quwi lahaa, balse heesaha ugaadhsadayaashu ay gaajaysiiyeen. Guuma wuu xanaaqay, balse Jinu wuxuu sheegay inuu doonayo inuu caawiyo. Wuxuu la yimid qorshe cusub, in la weeraro taageerayaasha kooxda Huntress, kuwaas oo ah ilaha tamarta difaaca. Jinnada kale way qosleen marka uu sheegay in jinniyo isu beddelaan fanaaniin. Jinu iyo kooxdiisii waxay isku beddeleen wiilal qurux badan, taasoo jinka kale ku qancisay in qorshuhu shaqayn karo. Kooxda Huntress waxay go'aansadeen inay fasax gaaban qaataan kadib riwaayadooda weyn. Laakiin Rumi waxay u sheegtay gabdhaha in ay riwaayadooda cusub u qorshaysay isla habeenkaas. Dadka adduunka oo dhan way sugaayeen heestaas cusub. Markay gabdhuhu ku tababarayeen heesta, Rumi codkeedu wuu istaagay mar qura. Waxay codsatay 5 daqiiqo oo nasasho ah, iyadoo riwaayadii tooska ahayd ay 10 daqiiqo ka harsan tahay. Baabi wuu cabsaday sababtoo ah waxaa bannaanka joogay 10,000 oo taageerayaal ah oo qaylinaya. Rumi waxay gashay musqusha iyadoo si dib leh u neefsanaysa. Markay diraceeda hoos u sii daysay, waxaan ogaanay in Rumi ay jinni tahay. Calaamadaha jinka ee jirkeeda ku yaalla ayaa bilaabay inay saameeyaan codkeeda. Waxaa la inoo muujiyey xusuus hore oo Rumi ay weydiinayso Saliin haddii ugaadhsadayaashu dilaan jinka oo dhan. Rumi waxaa jirkeeda kaga yaalla calaamado jinka sababtoo ah aabaheed wuxuu ahaa jinni. Saliin waxay u sheegtay in aysan ahayn jinni, balse ay tahay ugaadhsiye sidii hooyadeed. Markii derbigii difaaca la dhammeeyo, calaamadaha jinka way ka baabii doonaan jirkeeda. Tan iyo markaas Rumi waxay iska ilaalinaysay in saaxiibadeed ay arkaan jirkeeda. Markay guriga ku noqotay, gabdhaha ayaa u sheegay in wax walba hagaagi doonaan, riwaayad kalena la qaban karo. Laakiin Baabi wuu soo wacay isagoo leh taageerayaashii way niyad jabeen sababtoo ah kooxda Huntress imaanka aysan imaan. Rumi waxay u sheegtay gabdhaha in codkeedu dhib leeyahay, ayna adkaan karto in riwaayad kale la qabto. Miira iyo Soy waxay soo jeediyeen in ay nasasho qaataan ayna iska dhaafaan abaalmarinta. Balse Rumi way diiday, waxayna sheegtay in abaalmarinta ay tahay barnaamijkii ugu muhiimsanaa sanadka, sababtoo ah halkaas ayaa derbigii difaaca lagu cusboonaysiiyaa. Maadaama riwaayadii dahabka ahayd ay 2 toddobaad u jirto, waxay go'aansadeen in codka Rumi la daweeyo. Soy waxay lahayd in ka badan 57 fikradood si ay codka u hagaajiyaan, waxayna bilowday midda ugu horeysa. Waxay Rumi u qaaday nin dawooyin sameeya oo la yiraahdo Dr. Han. Dr. Han wuxuu sameeyey baaritaan la yaab leh, kadibna wuxuu siiyey cabitaan mucjiso ah oo lagu daweyn karo codka. Markay guriga ku noqdeen, waxay la kulmeen 5 wiil oo aad u qurux badan, waxayna markiiba jeclaadeen. Mid ka mid ah wiilasha ayaa dhulka ku dhuftay Rumi, taasoo keentay in gabdhuhu ay ka caroodaan dhaqankiisa. Kadibna waxay maqleen buuq suuq ku dhow, markaasay aadayeen si ay u eegaan. Waxay arkeen isla wiilashii quruxda badnaa oo heesaya, waxayna noqdeen koox heesa. Codkooda wuxuu soo jiitay dad badan.
balse gabdhaha Huntress waxay si degdeg ah u garteen in wiilashaasi yihiin jinniyo. Mira waxay doonaysay inay weerarto, balse Rumi ayaa joojisay iyadoo leh, waxaan joognaa meel dad badan joogaan. Wiilasha waxay magacooda ku dhawaaqeen kooxda Saja Boys waxayna dadka ugu yeereen riwaayad habeenkaas. Laakiin Huntress waxay diyaarsadeen qorshe, markay habeenku dhaco waxay xirteen dharkii ugaadhsiga jinka si ay u weeraraan. Marka Saja Boys ay ka soo baxaan masraxa, waxay doonayeen in ay weerar ku qaadaan. Laakiin Jinu, hogaamiyaha jinnada, wuxuu arkay qorshahooda, wuxuuna masraxa ugu yeeray kooxda Huntress in ay la wadaagaan. Tani waxay ka hor istaagtay weerarkii Huntress. Intii ay mashquulsanaayeen, Saja Boys waxay baxsadeen iyagoo galay meel lagu maydho. Gabdhaha markay raaceen waxay galeen dabin. Waxaa weeraray jinniyo biyo ah. Intii lagu jiray dagaalka, Rumi waxay aaday si ay u disho Jinu. Intii ay dagaalayeen, dharkeeda ayaa dilaacay, taasoo Jinu ka yaabisay markuu arkay inay tahay nus jinni. Rumi waxay ka baqday in saaxiibadeed ay arkaan calaamadaha jirkeeda, sidaas darteed ma aysan caawin karin. Laakiin Jinu wuxuu gacanteeda ku duuduubay maro si uu u qariyo calaamadaha, markaas ayay la dagaashay jinka oo ay caawisay gabdhaha kale. Guuma, boqorka jinka, wuu ku farxay Jinu sababtoo ah wuxuu furay dariiqa u dhexeeya jinka iyo dunida bini'aadamka. Gabdhuhu way argagaxeen markay arkeen in derbiga difaaca uu daciifayo. Baabi wuxuu u sheegay in Saja Boys ay si xowli ah caan u noqdeen. Rumi waxay rumaysan tahay in ay ka adkaan karaan Saja Boys haddii ay la yimaadaan hees cusub oo si adag u dhaleecaynaya. Rumi waxay u sheegtay Zoe in ay qorto hees cusub oo ah diss track si ay u fashiliyaan Saja Boys oo jinnada ceebtooda la kashifo. Rumi waxay go'aansatay inay cabto cabitaankii ay ka heshay Dr. Han, laakiin waxay ogaatay in uu yahay casiir canab ah keliya. Waxay aragtay shimbir xiran koofiyad oo istaagtay balakoonkeeda. Markay baartay, waxay aragtay bisad jinni ah oo wata warqad. Bisaddii jinniga ahayd waxay siisay warqad ka timid Jinu oo ku casuumayay in ay la kulanto. Rumi waxay tagtay kulanka si aysan ula hadlin, balse ay u disho Jinu. Jinu wuxuu ku yidhi ha xanaaqin, wuxuuna rabaa in uu la hadlo keliya si uu uga hadlo calaamadaha jinka ee jirkeeda ku yaala. Wuxuu yidhi, haddii aan ku dili lahaa saaxiibada ayaan u sheegi lahaa in aad jinni tahay. Jinu wuxuu la yaabay sida gabadh jinni ah, islamarkaana ugaadhsiye ah, ay ugu nooshahay dunida dadweynaha si xor ah. Rumi way diiday inay tahay jinni, balse Jinu wuxuu weydiiyey sababta calaamadaha jinka ugu yaalaan jirkeeda haddii aysan jinni ahayn. Jinu wuxuu sheegay in uu isagu la qabo dareenkaas, ayna jirto in jinnigu dareemaan ceeb iyo xanuun. Guuma wuxuu jinka ku maamulaa cod ku hadla dhegahooda, taasoo kicisa cabsida iyo murugada. Rumi ma maqasho codkaas, taasoo ka dhigaysa mid gaar ah. Jinu wuxuu u sheegay markii ugu horreysay uu maqlo codka Guuma in ay ahayd 400 oo sano ka hor. Qoyskiisu aad bay u saboolnaayeen, wuxuu lahaa oo keliya qalab hees oo duug ah, beeba. Wuxuu ku heesi jiray waddooyinka, balse cidina uma sacbin jirin. Maalin uu quus joogay ayuu maqlay codka Guuma oo u sheegay inuu waxba u qaban karin qoyskiisa, balse uu ka dhigi karo mid qiimo leh. Habeenkii xigay ayuu caan noqday, ilaa boqorkii laftiisu uu u sacbiyey. Qoyskiisa waxay u guureen dhulkii boqorka, waxayna heleen nolol fiican. Laakiin wuxuu arkay calaamadaha jinka oo jirkiisa ku sii fidaya ilaa ay gebi ahaanba cunaan. Markaas ayuu noqday maxbuus jinka ah, laguna xukumay nolosha jinka ee hoos ka jirta. Qoyskiisii waxay waayeen wax walba, xaaladooduna way ka sii dareen markii uu ka tegey. Xusuustaas waxay noqotay ceeb maankiisa mar walba ku haysata. Jinu wuxuu ku yidhi Rumi, naftaada aqbal. Waxaad tahay qof gaar ah. Rumi waxay ugu jawaabtay, anigu adiga mayhid. Jinu wuxuu yidhi, waan fahamsanahay inaad weli diidan tahay xaqiiqda sida aniguba aan horay u ahaan jiray. Wuxuu u sheegay in ay la kulanto mar kale marka ay diyaar u tahay inay aqbasho qofka ay dhab ahaantii tahay. Habeenkii xigay, gabdhaha Huntress waxay dhammaan sameeyeen hees cusub oo lagu magacaabo Takeon. Maalintii xigtay, Huntress waxay tageen meel ay taageerayaashooda ugu saxeexayaan saxeexyada autograph. Laakiin Saja Boys ayaa meesha yimid, taasoo keentay in taageerayaashii ay laba u kala jabeen. Rumi waxay soo jeedisay in miisaskooda la mideeyo si ay u helaan taageerayaal badan. Jinu wuxuu isku dayay inuu la hadlo Rumi, balse waxay u sheegtay in aysan la hadlaynin qof ka shaqaynaya danaha Guuma. Jinu wuxuu yidhi, waan caawinayaa naftayda. Haddii aan caawiyo Guuma, wuxuu iga tirayaa xusuusta iyo codka dhiba. Markay Rumi tababaraysay, bisaddii jinka ahayd ayaa mar kale u timid oo warqad siisay. Waxay bisadda ku qarisay markay maqashay Mira oo albaabka garaacay. Mira waxay aragtay in Rumi ay beddelayso ereyada heesta. Rumi waxay tidhi, heestan ma dareemayso inay ku habboon tahay in lagu jebiyo jinnada sababtoo ah waa mid nacayb ah. Mira waxay tidhi, heestu nacayb bay u baahan tahay maxaa yeelay jinnada waan necebnahay. Waxay dareentay in Rumi ay u muujisay naxariis jinnada, islamarkaana ay aragtay inay la hadlayso Jinu. Mira waxay ka shakiday in Rumi wax qarinayso. Balse markii Rumi diiday, Mira waxay raaligelin ka bixisay shakigaas, waxayna sheegtay inay rabto in jinnada oo dhan la burburiyo. Jinu iyo kooxdiisa waxay si tartiib ah u bilaabeen inay codkooda ku xadaan nafta taageerayaasha. Nafahaas waxay u diraan Guuma, taasoo xoog dheeri ah siinaysa. Rumi waxay u dirtay Jinu casuumaad si ay ula kulanto. Waxay ku tidhi, waxaa jirta waddo kale oo aad xor ku noqon karto adiga oo aan u adeegaynin Guuma.
haddii Huntress ay ku guulaysato Idol Awards, derbiga difaaca ayaa xirmaya, jinnadana si joogto ah ayaa loo xanibayaa. Jinnu wuxuu aqbalay inuu caawiyo wuxuuna ka baxay tartankii Idol Awards. Waxaa muuqday in iyaga oo labadooda ay dareen jacayl isku qabaan. Markay gabdhaha tababaranayeen, Rumi waxay tidhi, ma rabo inaan ku heeso heestan sababtoo ah aad bay jinnada ugu xun tahay. Mira aad bay u xanaaqday waxayna su'aashay Rumi waxa ay qarinayso. Laakiin dhibaato weyn ayaa ka dhacday sababtoo ah derbiga difaaca wuu sii daciifay. Jinniyo ayaa bilaabay inay ku soo qulqulaan dunida dadka. Gabdhuhu waxay u sheegeen Rumi in haddii codkeeda la waayo, wax walba way burburayaan. Maalintii weynayd ee Idol Awards ayaa timid, gabdhaha Huntress waxay masraxa kaga muuqdeen si heer sare ah. Marka Rumi ay qaaday qaybtii ugu dambaysay ee heesta, Soy iyo Mira waxay arkeen Jinniyo la mooday inay baabi yihiin oo afduubanaya. Waxay u ordeen si ay u badbaadiyaan, balse waxay ogaadeen inaysan ahayn baabi, balse ay ahayd khiyaano ay jinka ku dhigeen si ay uga saaraan masraxa. Laba jinni ayaa isu ekaysiiyey Mira iyo Soy waxayna masraxa ka soo baxeen iyagoo soo weeraray Rumi. Jinnadu waxay jiideen dharkeeda si ay u muujiyaan calaamadaha jinka ee jirkeeda saaran. Mira iyo Soy markay arkeen aad bay u yaabeen waxayna ka baqeen Rumi. Rumi waxay isku dayday inay u sharaxdo wax walba iyo sida ay u rabtay inay hagaajiso dhibaatada. Laakiin saaxiibadeed waxay ku fiiqeen hubkoodii iyagoo leh, kuma aragno Rumi, waxaan aragnaa jinni. Rumi way jabtay, way ooysay, waxayna ka carartay masraxa iyadoo qalbi jab ah. Waxay raadisay Jinnu si ay u weydiiso sababta loo fashiliyey, waxayna ogaatay in isaga laftiisu ahaa kan sirta shaaciyey. Jinnu wuxuu u sheegay in wax walba uu u sheegay ay been ahaayeen, uuna rabay oo keliya in uu kalsoonideeda helo. Wuxuu qirtay in uu qoyskiisa ka tegay, ayna ahayd inuu heshiis la galo Guuma si uu uga baxo noloshaas murugaysan. Isla waqtigaas, Guuma wuxuu galay maskaxda Mira iyo Soy wuxuuna ku beeray nacayb ay isu qabaan. Laakiin Jinnu wuxuu is-hordhigay si uu u badbaadiyo, wuxuuna u dhintay isagoo raaligelin ka bixinaya wax walba. Dhammaan taageerayaashii waxay bilaabeen inay si wada jir ah u heesaan. Tani waxay siisay Rumi iyo gabdhaha Huntress awood weyn, waxayna ugu dambayntii dileen Guuma. Derbigii difaaca ayaa la xoojiyey si joogto ah, jinnadana laga saaray dunida dadka. Filimku halkaas ayuu ku dhammaaday.